caalamka kuma taagno dabihii wax looga qaban lahaa isbedelka cimilada rabitaankii siyaasadeedna arintaasi waa uu sii baabaya taasina waa fariinta uu dirayo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isagoo ka hadlaya wadanka New Zealand ayuu ku tilmaamay isbedelka cimilada inay tahay arin xasaasi ah xilligan aynu ku jirno Faadimo Macalin Abuukar ayaa ka waramaysa waxay ahayd soo dhaweyn diiran oo Antonio Guterres uu ka helay New Zealand laakiin fariintiisu waxay ahayd mid cad waxa kale oo uu u yimid arin kale booqashadiisa waxay ku soo beegantay inuu la kulmo hogaamiyayaasha oo uu u muujiyo wadajir inta lagu guda jiro bisha Ramadaan wax ka yar 2 bilood markii 50 muslimiina lagu dilay weeraradii masaajidyada Christchurch waxa kale oo uu booqan doonaa jasiiradaha gobolka Pacific dalalka hooseeya ee gebi ahaanba ku baabi'i kara heerka biyaha badda ee sii kordhaya xaqiiqdii waxa ay safka hore uga jiraan goobaha sida ba'an ee u saameynayso waa inaan joojinnaa isbeddelkan oo aan dib u soo celinaa ma oggolaan karno isbeddel iska socda waa inaan difaacno nolosha dadka waxaan kaloo u baahannahay inaan difaacno dunideenna isagoo ka hadlayay daadadkii dhowaa ee Mozambique wuxuu sheegay in caalamku uu dareemayo isbeddelka cimilada iyadoo heshiiskii Paris ee cimilada ujeedkiisu ahaa in la yareeyo heerkulka dunida oo laga dhigo 1.5 Celsius Antonio Guterres wuxuu sheegayaa in siyaasiyiintu ay ka gaabiyeen hawsha arrinku waxa weeye in iyadoo xaalkii ka sii darayo ayuu rabitaankii siyaasadeedna sii baaba'aya si kastaba waxa uu ammaanay New Zealand isagoo yiri dalalka kale oo dhanna waa inay raacaan isbeddelka ma samaynayo bini'aadamka oo kaliya balse waa duurjoogta tusaale u soo qaado xayawaankan dunida sii kululaanaysa waxay uga dhigan tahay baraf badan ma jiro oo ay ku qaraabtaan taasoo halis gelinaysa jiritaankooda waxaa kaloo jira maroodiga Afrika maalintii waxay u baahan yihiin inay cabaan 25 litir oo biyo ah haddaba isbeddelka hawada waxay ka dhigan tahay in halis naftooda ay ku jirto waddamadu weli si buuxda ugama warhayaan saamaynta ba'an ee ay keenayaan oo haddaba iska sii socota in la sii kordhiyo diblomaasiyadda waxay keenaysaa in shirka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee Sebtembar loo arko fursaddii ugu dambeysay ee looga hortagayo isbeddel aanan mar kale wax laga qaban bal markana aynu eegno qodobada